in Gaza. Trump was proposing that nearly 2 million people be expelled from Gaza ahead of the US and potentially its military moving in. سمعت آخر خبر؟ لا. قال بدهم يبعثون على الصومال وعلى بنما وعلى جزر مش معروف أصلها في الخريطة. addoon falastiini ah meel ha kuu soo fariisto oo weligiis Israa'iil addoonsan jirtay. kadib hadalleen ka soo yeertay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump kaas oo ahaa in la rari doono ama la guurin doono dadka ku sugan Gaza loona guurin doono ama loo rari doono saddex meel ka mid ah oo ah Morocco, Somaliland ama Puntland. hadalleen ayaa waxay ka dhex bilaabatay shacabka Soomaaliyeed iyo Falastiiniyiinta taas oo dadka qaarna si wanaagsan ugu falceliyeen dadka qaarna si xun ay ugu falceliyeen. aniga fikirkeyga haddaan ka dhiibso waxaan leeyahay dadka ama shacabka reer Falastiiniyiin dan uma jirto ama ma rabaan oo marnaba go'aankaas ma qaadan doonaan in ay ka guuraan ama laga barakiciyo wadankooda iyo meesha ay ku dhinteen dhiigooda u shubeen. social media waxaa ka bilaabatay cambaareen iyo in laga falceliyo hadalkaas oo ah dadka qaar ay leeyihiin oo Falastiiniyiin ama dad kale oo Carab kale ha ahaadaan yani Soomaaliya waa wadan dhibaataysan waa wadan asigaba oo burbur ku jiro waa wadan dagaal sukeey soo galay waa wadan dhaqaalihiisa fiicneen. سمعت آخر خبر؟ لا. قال بدهم يبعثون على الصومال وعلى بنما وعلى جزر مش معروف أصلها في الخريطة. والله بالنسبة إلي أنا لو عموت ما طلعت من هنا لأنه في الصومال لا في صابونة ولا في علبة فول ولا في حاجة في الله عزك بنجز زي كذا وقاعدة ولا حاجة ولا بيع ولا شراء بس يعني بدك تضلك هنا في بلادنا. يفضلوا على الصومال بالضبط يا جلطة يا صدمة يا موت. sidaasay dadka qaar ugu falceliyeen sidoo kale dad oo waxaa jiraan xitaa Falastiiniyiin inay yihiin in kala shaki ku jira Carab kale inay yihiin kuwaas oo ka mid ah ninkan hadeertana u jeedaan ninkan wuxuu leeyahay yani Soomaaliya waa wadan burbursan waa wadan saxan yani si gaar ah wuxuu ataaga ama wax uu sheegay Puntland. hadda u soo laabano aniga ahaanteeda shacabka reer Falastiiniyiin maanta waa dad ii kaba dhibaataysan. ايش يا عم ايش مالك؟ أنا بتوجعني ومش قادرة أعمل شيء. من ايش تبكي؟ عشان ما أعرف ما أنا دم وتنزل كل يوم من الدم. وين رجلك مليانة؟ marka u maleynaa yani dadka shacabka Soomaaliyeed way jecel yihiin sidaas darteed maanta haduu qof Carab wax ka sheego ama qof Carab wax ku dhaho sida dadka wanaagsan ay u jiraan sidoo kale waxaa jira dad xun. هذا فيديو. ايوه فيديو. انا الصومال كيف الصومال. ايوه وانا وثائق بتتحدث على فلسطين وانا وين بلد على الصومالي ولا سوينينا اندوبي وان شاء الله يصورها يا كذا صح. ايوه وان فلسطين الصومال ونعم. marka waxaa leeyahay shacabka Soomaaliyeed dadka walaalaheen reer Gaza iyo ka wada dhibaataysan ah maanta ma ahan yani in lagu digto dadka caaytama xitaa waxaa laga yaabaa in ay dad reer Falastiiniyiin ay yihiin dad kale oo Carab ah oo luqadda Carabiga ku hadlaan yani afka Carabiga kaliya kuma hadasho maanta reer Falastiiniyiin dad badan oo kale waxaa jira oo luqadda Carabiga ku hadasho. sidoo kale wiilkan reer Falastiiniyiin waa Falastiin ayuu ka soo jeedaa wuxuu leeyahay dadka Soomaaliyeed madaxeenu saaran yihiin waan jecelnahay ninkan oo ku diganayo ninka oo يعني Soomaaliya Puntland قرعان wax ugu sheegay ayuu leeyahay isku xishoon. يعني والله العظيم يا اخوان عيب والله العظيم يا صاحب الفيديو اللي اسمك بشار سعادة عيب عليك. استحي على دمك استحي على وجهك. ايش بدك في اهلنا في بوتلاند في الصومال بتغلط في شرفهم وفي اعراضهم وبتتمسخر عليهم وبتتريق عليهم وعمرهم في حياتهم ما اذونا في اشي أهلنا في الصومال في بوتلاند. يعني والله العظيم بسبب أمثالك بتجينا الكلمات الوسخة صاروا يغلطوا فينا في التعليقات بسببك. يعني والله العظيم عيب عليك. استحي على دمك استحي على حالك انت مش صغير والله العظيم ما انت صغير. يعني بسببك فوت على التعليقات على الفيديو اللي انت منزله وساخة بشكل مش طبيعي والله العظيم عيب. أهل الصومال بوتلاند بنعتذر لكم يا أخواننا ويا تاج راسنا ويا أحبابنا
وصدقوني والله العظيم اللي كان بيحكي عليكم في الفيديو وبيتريق وبيتمسخر على شرفكم وعلى عرضكم انه لن يمثل اي بني ادم حر من الشعب الفلسطيني. انتوا اهلنا وناسنا، اهلنا في الصومال، بنعتذر لإلكم للمرة المليون، وحب كبير لإلكم، ولا تردوا على هيك اشكال بتسيء لإلكم، احنا ما بنرضاها والله العظيم. تحياتي لاهل الصومال. هذه سيتا وفي عنتها صح. رمضان مبارك علينا وعليك يا يو فروم وير؟ فلسطين برو نو واي والله فلسطين. ايقظ يو فروم فلسطين؟ يس I have to hug you bro. Of course. Yeah, I have to hug you bro. Yeah, you are my brother. You from Palestine? Yes. I feel you bro. I know. صاحب. يعني dadka way isjecel yihiin dadka shacabka ma fahanteen waxa isku diraya ama waxa qoorta isku gelinaya waxaa waaye waa dad kale oo rabo meesha in ay muran iyo buuq iyo dagaal iyo wax aan loo joogin meesha ka abuuraan. dadku isjecel yihiin dadkii aan isku dirin oo muxuu ahaay sida wanaag adigoo wanaag faafin kartid oo wanaag samayn kartid yani maati iyo waxba ha abuurin. aad iyo aad u mahadsantahay muuqaalka dhammaadkiisa soo gaartay video hadaa ka heshay like saar sidoo kale asxaabta u share garay follow soo dheef ku soo biir si uu dad badan u gaaro muuqaalkan like saar. aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.